xasan cabdi khayre oo ka mid ah siyaasiyiinta somalilan islamarkaana kuba dhalinta yaryarka ay haatan soo baxaya waxaa waraysi qaasa la yeeshay axmed naasir jabriil faarax wuxuuna waraysigaa kula yeeshay xarunta harwanaag news ee ku taalla galbeedka magaalada toronto su-aashii ugu horreysay ee axmed naasir jabriil faarax uu weydiiyey yunis xasan cabdi khayre socdaalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku gaaray dalka maraykanka gaar ahaan caasimada dalka maraykanka ee washington d c cidda uu la kulmi doono cidda socdaalkaasi ku casuuntay madaxweynaha iyo waxyaabaha uu kala hadli doono jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan dalka maraykanka su-aasha koowaad ee axmed naasir oo weydiiyey ayaa waxa ahayd inuu faahfaahin ka bixiyo yunis xasan cabdi khayre socdaalka uu ku gaaray madaxweynaha somalilan dalka maraykanka inuu faahfaahin ka bixiyo waxaana hadaladiisi ka mid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baa u mahadsantahay su-aashaada niyo horta waxaa wanaagsan waxaa xaqda runtan laga hadlo maanta haddii dowlad kusoo casumtay maraykanku official biden iyo official ka socota dee protocol bay leedahay lasoo maro marka protocolka aan dowladdu markay ku casumta lasoo maro iyo maanta waxaa xaqiiqdaha aan aragnay isku mid maaha hadda waxay u muuqataa dad ganacsi u yimi oo dantooda wata oona dowlad shaqo ku lahayn sida xogaalkan hadda hayno maxaad ku caddaynaysaa inay u yimaadeen ganacsi wafdiga somalilan ee washington jooga waxaa caddaynaya inuu ganacsi u yimaadeen 3 nin oo maalqabeena oo ganacsiyaala baa la socda haddii dowladdu maanta ictiraaf raadinayso dee dowladda madaxweynaha wasiirka gaashaandhiga dadkaasaa soo bixi lahaa waxa u soo raacay 3 nin oo ganacsadaa dee waxaa ii muuqataa inuu ganacsi yahay tariibkanu uuna tariib ictiraaf ahayn taasaa xaqiiq u ah waa laga soo tegi lahaa 3 nin ee maalqabeenta okay marka waxaad leedahay miya dowladda maraykanku miya casuumin taas waa xaqiiq runtuna waa in laga hadlo wanaagsanta waxaa caddeynaysa inay dowladdu maraykanka casuumin waxaan hadda indhahayna ku arkano oo social media lasoo marinayo iyo siduu ku soo degayo iyo wafdiga soo dhoweynaya waxay u egtahay dad gaar ah inay waxaan wataan ama qoys gaar ah inay dad soo dhoweynayaan waa hadda anoo ka degan maraykanka oo 10 saaxiibada iyo 10 reerkayga soo dhoweeyaan saasay hadda u muuqataa laakiin hadduu dowladdu ku soo dhoweynayso dee white house oo ku soo dhoweyn lahaa washington d c baa laga soo degi lahaa oo dowladda iyo lamasiinkoodii baa la arki lahaa waxaa la arki lahaa madaxweynaha la arki lahaa rag wasiiradaa la arki lahaa dee taas ma muuqata hadda laakiin yunis annagan imika aragna maaha baabuur lagu qaaday s u v oo madow oo calankii somalilan ka babanaya oo hoteelkii la geeyey waxay taas u aragnay laakiin markuu soo degay haddaa muuqaalka aragtid meesha shacabku ka soo degay dadka markay madaxweyne yihiin iyo dictator section gooniya ka soo degaan ma soo dhagaan meesha public ka soo maraya kama soo baxaan gooni exit bay leeyihiin because waa high officials madaxweyne wasiir xaggaasi ka soo degaan sida loo ogyahay adduunaha meel kasta oo la tago marka taasaa caddeynaysa inay tahay tanu dad shacab oo iska soo degay oo doonaya inay arrintan u yimaadeen dhammaysta ta kale s u v-gan la sheegayo oo lagu qaaday anigu iyo saaxiibadii baa odhan karaa 10 s u v a laysoo koreeyo iska daa asagu mid buu watay 10 isoo dabadhigo kaale airportka iga soo qaada hadhowna waxaan odhan karaa dowladdii baa ay soo casintay taas micno badan ma sameynayso meel kasta laga soo kareystaa baawarta wax dowladda ay ku dhegan oo ka muuqata meesha kama aragno oo marka waxaad leedahay miya yunis waxaan la leeyahay dowladda maraykanka casuuntay iyo waa la soo dhaweeyey iyo waxaan idil waa been saasaad leedahay totally waa been waxaas wax allaale wax ka jira ma jiro because calaamadihii dowladdu hadday ku soo casumtay kama muuqato dee tariibka taa maxaa la iskaga indhatiraya marka waa been dadka qulqul joogta iyo qurbo joogtan ayaa been loo sheegin runtu kama maaranto in la sheego specially qulqul joogtada hargeysa joogta inuu runta dadka lagu dhaqo wax ka wanaagsan male ta kale tariibkanu maanta 4 milyan oo dollar baa ku baxaa la yidhi xogta hayno wadankii maanta waxa ka taagan waa ogtihiin was it necessary in la soo baxo was it unnecessary waxaa loo arkaa inuu yahay unnecessary 4 milyan oo dollar imise riig bay qodi lahayd marka hadda waa ayaan darada meesha ka jirta markay meesha dad gooni ay talinayaan shacabka lagu tumanayo aragtidiisa iyo baahida la iska indhatirayo waxyaalahaas oo miran baa dulumka keenaya yunis waxaad tiri dad gooniya ayaa talinaya maxaad ula jeedaa dad gooniya ayaa talinaya maxay yihiinse dadkaasi adigoo noo soo koobay dad gooniya waxaa talinaya waxaan ku leeyahay dad
taladu waxay ka soo godaa dowladda la yahay dad badan bay ka soo godaa. That's not the case. Taladu kor iyo dhammaan madaxweynaha ka soo godaa, shakhsi bay ka soo godaa keligii. Wuxuuna doonayna lama mariyo. waa nin madaxweynuhu wuxuu u yaqaan haddaaba compromise la sameynaya doqonnimo tahay. war waddanka ku dhismaya in laisku soo dhowaado oo fikradaha la isku keeno. laakiin tayada unbaa soconaysa, tayada unbaa anigunbaa waxgarada. I think ayaan daray maanta ku soo habsatay waddankii. Yuniso, laakiin markaad sidaa u hadlaysid oo aad madaxweynihii dalka la daliilisid, soo looma qaadanay inaad tahay nin qaran dumisa. warniyo waxay taas ay u noqoneen waddankan xajaclaan ka leeyahay, reer baa ii degan. aabbahay nin siyaasi weyn unbaa ahaa la yaqaano oo ka horeeyey madaxweynahan iyo saaxiibkiiba ka soo horeeyey oo dowladnimadu hadda aniga iguma cusba. weligeeba dowlad baan aabbahay dowlad aqoonkeedaan garanaya sida loo daba fadhiisto. marka kama soo horjeeday dhaliishu qofku markuu ku saxayo maaha inaan ka soo horjeedo uu ku saxaya weyaan. dhaliishu iyo criticismku waa la ogol yahay inuu la kala fikrad dignaado oo wax la isku sheegi karo. laakiin haddaan maanta igu tiraadid madaxweynihii baa taas idhi qaran dumis baa tahay, dee taas waa manawaal, waa been baa sheegaysaa, waxba kama jiraan. Okay, Yunus, haddii iminka aan ku soo noqono wafdiga Muuse Bixi ee Washington jooga, yaa casuumay baad isleedahay? waxaa casumay company ay dan ka leeyihiin oo fabric internetka ka dhexeeya AT&T ganacsi baa soo casumay. fiisaha haystaana u eega waa fiisa businessa, maaha fiise diplomata. fiise white house ku bixiye maaha, waa fiisa business classay ku soo baxeen. taasaa caddeynaysa xogtaan hayno. haddii kale uu ka duwanaan lahaa xogteedu been bay noqon lahayd. hadduu ku soo bixi lahaa white house official fiisa, hadduu ku soo bixi lahaa fiisaha hadda wada haystaan kulligood eega waa fiisa businessa. taas baa caddeynaysa xogtaan hay inay run tahay, inay u socdaan ganacsi. qof kasta laskama siiyo fiisa businessa because ta kale waxaa caddeynaysa saddexda nin ee socda waa saddexda nin ee maalqabeynta. ta kale maxaa loo hadduu triibkanu yahay business imise kaloo maalqabeen baa jooga. maxaa loogu soo tegey maxaa loogu soo tegey muxuu ahaa kan Pepsi Coca-Cola iska leh, maxaa loogu soo tegey ilmo deerayo, maxaa loogu soo tegey boqol raggan lacagta haysta ee faraska iyo raggan oo dhan maxaa loogu soo tegey qaadolayaashan oo dhan lacagta haysta. hadduu ganacsi obina yahay oo qofka sii imanayo waay saddexdan keliya loo dalbaday. marka maxaad isleedahay marka adigu waay loo dalbaday? saddexdan arrin dan guud buu madaxweynuhu ka leeyahay. dan guud buu ka leeyahay saddexdan uu kaxeynayo. hadduu yahay ganacsi furan te qof kastaa soo bixi lahaa maalqabeyntu way badan yihiin. Okay, marka dantaa guud uu ka leeyahay maxay kula muuqataa adiga? inuu saddexda nin kaxeeyo oo ganacsigan uu ka soo dilaalo xaqiiqali ka soo qaado. wax kalaa jira ila raggan lacagtoodii baa u hadlasee. Okay, sidaan ogsoonahay Muuse Bixi xaflad ayaa loogu dhigayaa Washington kulleyba dee waad ogtahay banquet hall. 200 baa tigidhada lagu soo gelayaa, 250 qof keliya ayaa loo ogol yahay inay ku soo galaan. bal ka war madaxweyne idil oo dal imanaya sidii xafladii 18 May oo kale lacag lagu soo gelayo. taas waa ayaan dareemo inaan uga habsatay. ta kale waxa ma aragtid markii la soo dhaweynay hadda waxaana muhiima meesha ku jira adduunkan meesha la joogo maanta qurbaha mucaaradka badan 90% waa mucaarad. marka maxaa mucaaradkii hadduu 90% yahay 5% oo ku soo dhaweyso wax badan ma sheegayso. 5% iyo qoyskiisa oo hoolka yimaado wax badan ma sheegayso. taa Soomaaliland ma matalaysa dee. Soomaaliland waxay matalaysaa waxaan ka koobannahay. haddaan doonno ictiraaf waxaan ka koobannahay beesha dhexda iyo reeraha nagu hareersan. haddaana waxaas la isku hayn oo ay isku koobneen dee lama oran karo Soomaaliland ictiraaf baa loo doonaya haddaan dadkaas kala maqan yihiin. ictiraafka wuxuu ku xidhan yahay 90% dadku waa mucaarid. maxaa keenay bal isweydiiya. because taladii buu keligii ku ekaaday madaxweynuhu iyo taladii la wada lahaa buu yidhi keligii baan talinaya wax kastana naga go'aan. Yunus, waraysiga waan iska gabagabaynaynaa imika dhowr su'aalood oo kale baan doonaya inaan ku weydiiyo. waxaad sheegtay in shacabka Somaliland beel lagu maaweelinayo. waxaad kaloo sheegtay in xukuumaddan Muuse Bixi ay halkan ganacsigan u timid inay dilaal tahay.
marka arrimaha marka laga yimaado maxaa adigu maadaama adigoo dee sida aad sheegtay somaliland tahay aabbaha marxuum xasan cabdikhayr uu ahaa oo weligaa lahaa maaragtay gacan diblomaasiyada aad ku soo kortay maxaad is leedahay waxyaabaha keenaya dhibaatadan iyo waxan iyo beentan oo kale waa su'aal wanaagsan iyo waxaa keenaya marka runta laga tago xaqiiqda aan lagu dhaqmin waxyaalahaas oo miinan baa imanaya 30 baan ku noolnahay been 31 years baa lagu nool yahay been xaqiiqdu kama maaranto waddankan hadduu horumar tegayo inuu runta la isku dhaqo beentu meel ayna geysa male 30 sano been lagu dhaqmay ninkii maanta Faysal Cali Waraaba ka jeclaa Somaliland ma jirto wata maanta ka soo taagan koornayo reerba meeshiisu maamulanaya maxaa keenay because wuxuu arkay wuxuu ku xiiqay oo meeshii la kala leeyahay oo dad gooniye iska leeyihiin marka waxa keenaya runta inta lagu dhaqo shacabka wax kama maarmaso dawladnimaduna waxay ku xiran tahay inaa ogolaatid dad isku xiran inaan noqono qarankan la sheegayo meesha dhexe gudabuursi gabooye warsangeli dhulbahante intaasaa Somaliland isku yiraahdaa intii lama hayo maanta afartii reere dhexda meesha dhexda bay is ogoleen maanta marka maxaa raadinaa waaye dhexdeennii bay lis ogoleen weligeed iyo alle Somaliland intaas sanaan ku noqonayay meesha maanta taaganta weligeed ma taagna laba qof isma arki karaan qabyaaladu cirkaasay maraysaa waxaasna waxaa keenay xukuumadda hadda meesha haysta allaale waxa is arki kara male bal adu waxa is weydiisaa intaasoo madaxweynaha la soo maray weligaa maaragtay madaxweyne wasiirka maaliyadda maxkamadda sare maxkamadda hoose inay hal reer maamulaan say ku dhacday maanta haddii sidaa noqon lahayd madaxweynihii ka horreeyey waxaa la odhan lahaa waa khalad taa marna runta lagama sheegayo inuu reer Somaliland dhaho anaa u talinaya dee waa waxa maanta meesha taagan in la diidan yahay laakiin Yunusow dad badan baa waxay isweydiinayaan adigu waxaad ka soo jeedaa beeshii Maxamed Axmed Siilaanyo madaxweynihii hore Somaliland markaana siyaasadda dee waxaad ku ahayd nin activist ku ah mar walba maxaad uga hadli weysay dhibaatooyin kulliba way jireen maxamed Axmed Siilaanyo waagaa markii uu hayay oo imika uga hadlaysaa mar kaste oo dawlad timaado dhibaato way jirtaa laakiin waxa maanta ii keentaa shacabka adduunka meesha iga dhageysanayna bal ha ii keenaanoo ha isbarbar dhigaan Maxamed Siilaanyo iyo Muuse yaa maanta dawladda ku reer badan bal isweydiiya maanta shanta qolasa ugu sareeya waa hal reer Siilaanyo markuu haystay wasiirka maaliyaddu muu ahayn ninka militariga haysta taani buu ahaa maxkamadda sare nin habar awal buu ahaa maxkamadda hoose nin habar awal buu ahaa marna Siilaanyo muu oran kulli habar jeclaan ka dhigaya waa xaqiiqan waxaan sameeyay anigu ma waa xaqiiq oo la soo baarayo tan hadda Muuse Biixi uu kaalay shanta nin ee uu sareeyo oranaya wadankana maamuluna waa hal reer bay ka soo jeedaan sidee baa lagu kalsoonaan karaa inay cadaalad fulaan markaa saasaan ku weydiiyey cadaaladdu ma imanaysa dee waa hal reer weeyaan shanta nin ee u sareeya waa hal reer cadaaladdu meeda markaa waayay midna ogow Soomaalidu way ka duwan tahay inayna marna noqono يعني Soomaalidu marna dictatorship gumaysi ma yeelayso Maxamed Siyaad Bara laga yeeli waayay dictatorship iyo ana gacan bir la ku qabanayo qof kasta walaalo waxay ku dhaanto Soomaalidu way weeday reerisku ima baanahay in walaaltinimada lagu dhaqmo waxay ku wanaagsan tahay male wahagaag Yunusow kulliba imika madaxweynaha safarkiisa waxa la yiri ilaa 12 cisho ayuu qaadan doonaa marka uu soo dhameysto uu dalku ku noqdo guul ma la hoyin doonaa balsalada Abdinaasir xogaal baa u tahay tripkan waxa uu kaga duwan yahay sidii Guinea Bissau iyo Ethiopia markuu tagay iyo Kenya markuu tagay oo dadka inta la waalay oo la yiri ixtiraaf baa la soo celinaya oo ardaydiiba iskuulka la fasaxay wax allaale wuxuu ka duwan yahay male wax ilaale wuxuu ka duwan yahay tripkan tribadii uu marba Kenya tagay Ethiopia uu tagay Djibouti oo la yiri ixtiraaf baa la keenaya oo airportka ilaa wadada kasta la xidhay oo ardayda iskuulka la fasaxay ay dadka la lugooynay wuxuu kaga duwan yahay male wax allaale wuxuu kaga duwan yahay male
bal waxa adigu takaliis weydiin Soomaalidii kala dhan ma la yaaban war waligaa ma maqashay farmaajo intuu tagay Mareykan oo yiri ictiraaf baan Soomaaliya loo keenaya madaxweyne Dini baa tagay oo ictiraaf baan loo keenaya annaka tan nagu qalifan markastoo la baxo faankan beenta ah maxaa nagu kalifaya dadkii oo dhan baan maalin kasta naga maadsada haye waa la soo caaray ictiraaf baan raadinaysiin waa la soo caaray war dadkii baaba yaabanba waligii lama maqlin madaxweynayaasha kale oo oranay waxaan tagnaa London ama Switzerland ma tagnaa Mareykanka ictiraaf baan keenana waligeed lagama hayo marka maxaa anaga dadka kaga duwanahay oo maalin kasta oo meel la gaaraba oo loo oranaya ictiraaf baa la soo wada oo wadada markuu soo noqdana wadada loo xidhaya oo dadkii day to day shaqadoodii qabsanayay wadada kasta xiran maxaa u xirantahay madaxweynaha maanta soo degayo ictiraafkii buu soo wadaa war ilaahay ka baqa dadku enough is enough bay ka taagan yihiin maalin yoomi haddaa been sheegno maalin kasta waxa nin baa maalin kasta been sheegi jir maalin buu run sheegay war ka carar libaaxa ka carar dadkii libaaxii baa cunay markii uu runta sheegay because maalin kasta been baa loogu bartay ka dawladda maalin kasta been bay la soo taagantay waa la baxaya ictiraaf baa la keenaya wadada la xidhaya war ilaahay ka baqaniyo dadku ma indhaalaade islaanta burca fadhidee dawarsanaysa arkaysa inuu waxaanu been tahay xagaa la marinaya beenta intaa leeg indhaa la isku qaban enough is enough baa la taagan yahay 2022 baa lagu jiraaye masa maalin kasta lagu leeyahay reer baa naga xun iyo hebel baa naga xun war cid ku og ma leh haddaad dhooftid haddaad lagu soo ictiraafo haddaad cid allaale cid ku og ma leh kelmaddaana maanta iga qornaasiro ilaahay hadduu cimri nagu siiyo wallaahi 100 sano cirkii dhulkaa u jirta Somaliland inay ictiraaf la siiyo kelmaddaa ku qor maalinta hal i weydiiyo haddaan noolahay 100 sano u jirnaa because xaqiiqdii baan ka cararnaa runtii baa laga cararayaa sidaa markaa ictiraafku ku imanaya ictiraafku conditionskii rules buu leeyahay conditionskii ruleski we don't apply ba ictiraafku marka lagu siinayo waxa lagu oranaya reer kaliya lama ictiraafsane reerii kale kugu deegaansan deegaankii kale meeyay ma hayno meesha dhexe kaliya baa la aqoonsanaya isaaqun baa la aqoonsanaya war magaca isaaq baa lagu ciyaaraya niyo Somaliland iyo isaaq waan la kala saaraa markaa ictiraafka isaaq baa nin ictiraaf ku dhameela walaga tag baa lagu oranaya awl state baa loo baahan yahay warsangeligii baa loo baahan yahay dhulbaantii baa loo baahan yahay faqashini fogooy kulli waa loo baahan yahay waxaan dhan waxaas la isku yiraahdaa Somaliland inta hadaan lahayn diinada cirkii dhulka doorashan ictiraaf noo jira inay kala daaya dadkuna way ka daaleen beentii badneed intaas aan kaga baxay Naasiro okay su'aasha ugu dambaysa musabixi doorashada soo socota wuxuu gacanta u geliyay ciidanka qaranka ee Somaliland ee uu hogaamiyo Nuux Taani marka bal sidee u aragtaa in doorashadii idleed oo idil Nuux Taani gacanta loo geliyay Naasiro horta marka lagu leeyahay Somaliland on door jeertay waxa ku yiraahdaan sharci iyo dastuur baan leenahay sharci iyo dastuur hadduu jiro madaxweynaha walaa qof kale iskama oran kara waxay doonayaan waa waxay ku faanaan bileen baarlamaan baa leenahay dastuur baan leenahay maalin kasta ku soo doodaan maalin kasta warkoodaan dhageysta waxa dastuur baan leenahay dastuurku ma amrayo inuu madaxweynuhu daba ka fuul sameeyo yiraahdo wuxuu rabo iska sheego dhowr jeer buu meel kasta ka hadlaa daba ka fuul sameeya wax allaale wuxuu rabo buu iska sheegaa caatifad baa qaada wuxuu yiraahdaa ninkana u dhiibaya ninkana mataada mise dastuurku ma sheegayo waxa commissioner baa leenahay commissioner baa loo samaystay inuu dastuurkan doorashooyinka in waxan qabto iyo maalinta date la qabanayo nin xaskale commissioner baa iskale ninka raac baa wata iyo groupkiisa markii ayagu xaqiiqada soo dhigaan un baa la qabanaya laakiin madaxweynaha iska yiraahdo doorashadan waxaan ku wareejiyay Nuux Taani meeshan misku dhiiba walaalkii inaad arkay baan u dhiibanaya meeshan dastuur baa duu yaalo inuu kalmada ku hadlo waa khalad daara loo nin ugu imbish gareeyaba meeshana waxa la yiraahdo ciidamada qabsan kara ciidamadan waa maxay waa afar reer oo isku tagay afarta reer meesha la isku tagay hadduu reer kasta qorigiisa reerkiisa la baxo yaa isa dagaalaya markaa ciidanka wax qabsanay mee kii Maxamed Siyaad Bare on 90% oo qabiil kasta ku jiray ba dagaal markii lagu qaaday wax qaadi waayay
oo Soomaaliland waxba ka qaadi waayay qofku ilaahay xoreynaya ilaahay baa xoreynaya marka nuux taaniyo afarin oo reerkiisa ma qabsan kara Soomaaliland taas waa aqliga sharciga aqligan baa nagu ciyaaraysa maskaxda ma Allah la ma dhacaya maaha marka waxa wanaagsan dastuurka hadaa aaminsantiinba qaran baa isku sheegtiinay qarankii dastuurka meelaha kaga dhicina madaxweyniina ku dhaha ta kale Cabdinaasir oo ka soo qaadba uu diiday hadda wuxuu yiri tayada soconaysa bal Cabdinaasir waxaan ku weydiiyay wuxuu yiri taani baan ku wareejiyay bal adaan kugu weydiiyay maxaa dhici kara warsi neer dhici kara te burburun baa dhacaya 400 milyan uu haysto xaqu ku cuni ciyaalkiisa xaqay ku cuni iyagu nin daar ku jira dhagax tuur ma bilaawo Soomaaliya tirada asaa dhalan miyaarada ku jira hadduu yiraahdo waan daadinaya waxa dhan te miyaarada loogu soo dhacaya bal Cabdinaasir hadduu even tiisa u suurta gasho dadku maaha xerta ku nool Djibouti lama haysan karo Somaliland Soomaaliya oo dhan Somaliland kaliya Soomaali gumaysi ma yeeshaan Soomaalida kaliya gumaysi lagu hayo waa dadka isbaa ummageeda hayo marka waxaan ku sheegayaa taas haday dhacdo asagun baa Cabdinaasir oo ka daadanaysa ta kale hadii saa burburkaas u galana qofka oral way goy Sooli Sanaagna way goy Burcana way goy maxaa soo haray marka taas loo kala go'aya qofka sariirkiisu maamulnaa Faisal baa ka dhawaajiyay sidan ku noqon meesay qof bareerkiisu u talinaya oo ku afkiisa ka hay maalintii dadweyne nin reer guuleed baan hadna nin reer Samattaraat taas waa macnaheedu hadda xaqa iyo dastuurku ku soo noqon weydid dareerahan hay baan isku maamulnaa Yoonis oo imika barnaamijkii gabagabadii ayaan ku jirnaa dad badan baa ku daawanaya maxaad barnaamijka aad ku soo gabagabeyn lahayd caawa waliba barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynaa kaga tagayaa Soomaaliweyn هذا ما أنت نهاي ساق أنا Somaliland ساعدوني سودك waxaan ku soo qeylin jirnay waan naxsuuqay waa dhalatay baba xaqana ka dhacay taas way dhamaatay rag baa wadankan uu soo xoreeyay sanam ta inna madida sharafi karaama loo haya bas laakiin maanta maxay ku dambeysay in faan agajugleyn even xoriyto qolkii qof inuu maanta runta ka hadlo ba inta loo imaado la xidhaya no warrant no hebel baa madaxweynaha ka sheegtay war xoriyaqood waa waxa kaliya aan haysano in qofku wuxuu rabo sheegi karo dhaliishu waa la ogol yahay since then last 5 years kii hadlaba waa la xidhaya kii hadlo runta sheegaba waa la xidhaya de waa yaan daro markaa wixii loo soo dagaalamaya badii tan ku dambeysay ina maanta yiraahdo ana meeshan ka caga jug qofkii hadlaba waan xidhaya de ta in ma noqonayso oo haddana maanta la yiraahdo waa dhoofnay oo meel kasta la yiraahdo ictiraaf baa la soo wadaa oo la babaqleeyo de taas wax dadka qabanaya maaha runtuna kama maarmayso in la isku dhaqo suun aan adduunkan qof kasta mar buu leeyahay ka tagaya ama cagajugle ama qof xid dad ba adbu waa lagu bedeli tomorrow markuu nin kala qabsaba adiga dadka xidhay ehelkaaga waa la xidhaya bal hadda Cabdul muxuu ku xidhan yahay kelmadu afkiisa ka yidhi aqdar ku xidhan yahay bal xagay ku dhacday isweydiiyo maxkamad bay yiraahdeen dastuur baan aaminsanahay kelmadan ku soo celin underline dastuur maxkamadii ninkii haystay waa fasaxay xerlaayo police yar baa wuxuu yiri maye jooji waan iska haysanaa sharcigu wuxuu dhigayaa sharcigood markay akhriyaan garyaqaankii wuxuu dhigayaa maxkamadu ninka haysta haduu sharci khalad kugu waayo abaabka horta waa in la furaa la sii daaya qofka sharcigoodii baa dhigaya Somaliland taasi may dhicin sharcigii baa la dumiyay waxa weeyaan la jiifiya badan la siiyay tii la doonayna sharciga loo raacaya tii kalena waa la iska indhatiraya marka waxay ahayd in la sii daayo hadaa wax kale lagu haysto in la soo qorto arji oo la yiraahdo wax kala soo baxay waan ku dacweynaa asagoo suuqiisa jooga oo xoriyadiisa haysta in la dacweeyo waxyaaladu waxay kamid tahay waxa soo dhan waa wax dadka la caburiintu meel ma gaadho suuna leer baado ina kaaga maalin kasta dhirbax marka dama gacanta kugu seenaa naga tag buu ku oranaya dadkuna waa sida dadku maaha fataatir maaha dadkuna waa sida qof kastana timeline buu leeyahay intuu qofku dul qaadi karo enough is enough way hada waxa kaliya weyn aan dadka ka gadnaa waxa weeyaan Somaliland oo maarsi waxaan nahay dad xora xooti qool waxaan doon waa waxa adduun weynaha ka gadno ina dad xora nahay
maxaa hor ku nahay inaanu fikraddeena cabirno oo waxaan doonana sheegno bal ilaahay nagu dhaari ninkaan maanta ni weydiinayaa Soomaali weyne social media dadkii media dhan haysto dhan maanta kama hadli karaan runta maanta han wanaag maxaa lagu haystaa saddexdii sano ugu dambeysay bay han wanaag ka xiran tahay Soomaaliland maxay noogu xirantay runtay sheegtay nin dawladda shaatigeeda soo xiranaya baa maanta ninka xiray 3 sano buu nin dawladda shaatigeedii xiray han wanaag Soomaaliland kaliya ka xirantay adduunka meel kasta waa ka shaqeysaa markii la xirayna waxay ku doodeen saddexdii nin ee Arabe baxsaday hala soo celiyo kiiskiina waa furanahay war taas xorta qol ma hadee ilaahay ka baqa marka waxa dadka iibinay gaalada ka iibinay western ka iibinay ya adduunweynaha laga iibinay waxa xorta qol iyo wadan free baan nahay iyo safety baan haysanaa waxba kama jiraan hadaba media maanta wada fiirsada bal ilaahay nagu dhaariye kulligood waxa dawladii baa dooshay اعتراaf baa la soo celinaa hal mid oo dhigi kara war waxaanu ganacsi waaye waxba kama jiraan waa been اعتراafna ma jiree tomorrow loo imanaya koor u imanaya oo leeyahay license laga qaado marka han wanaagu ma runta ka sheegaysa marka ilaahay ka baqa indhuhuna way arkay dadku waa la arkay waxaan socdo waa la arkaya cidna ma aragtay kama indha la laakiin de waxa weeyaan dadku inay markay aan ku doodano xoriyatul qowl baan leenahay free baan nahay ma nihin madaxa xabad laga hayo qof kaste oo maxamed siyaad bari maxaa lagu diiday shalay ani weydiiyey maxamed siyaad bari aan waa noolaaye maxaa lagu diiday abay madax buu ahay waxa lagu diiday inuu la yiraahdo xoriyatul qowl ma jiro qofkii araba 20 jiro baa la geenay oo hadda kan maxay dhaantaa tan hadda aan joogno ee qoyska la isku xirayo maxay dhaantaa kii hadlaba waxa la oranayaa qoys baatay oo lagu xiray kadee maskaxda bilaadanka caynaysiin wax alla waxay dhaanta male dadka ku soo social media soo istaago war ma waalantiin waa maxay comparison ka sameeyeen war tan ka xun tan baa ka xun reer dhan baa la iskala dhaqaalahoodii la duminaya because reer in hebel baati reerkiisii iyo qabiilkiisii la duminaya because in hebel baati maxamed siyaad bari taas ku jirtay oo waa noolaa kii ka soo horjeestay dawladdu waa la qabanayay yes laakiin ininku waxa kaga duwantiin baa tiraadeen 30 sano baa waxa tiin dad free oo adduun weynaha tusteen inaad tahay dad la noolaan karo oo xorriyada qolka alaalinaya taa been baa ka sheegteen wax ka jira male bal waxa isu weydiiya han wanaag maxaa lagu haystaa han wanaag wax kale lagu ma haysto runta sida aanu maanta runta u sheegayo ee dad badan u dhibaso ana kala jecleen bay runta sheegaysa argeysa ka dhex sheegaysa intaas ma anugu nigi tagaya Soomaaliya daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta loo waxa halkaas inoogu dhamaado wareysiga qiimaha iyo galkacalka lahaa isla markaana uu inoo qaadayay Axmed Naasir Jibriil Faarax waxaana wareysigan uu la yeeshay Yunis Xasan Cabdi Khayre oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland isla markaana nagu soo booqday studio Harwanaag News ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto inta dib daba barnaamijkan oo kale u kulmi doono dhamaantayga waxaan idinkaga taginaa nabadino